aabbo weergaban ku nahay dunidan aan joogno aabbo warahdayda gabay baan kugu ammaanaye aabbow intadii gashaan ku axsan faliye iloobi maa wanaaggaga haddaan ilka la igaynin adduunyadan dhex joogno idin lahanteeda afarteedan geesood uunka kala jooga allihii sameeyan ka baryi inuu ku dhowraaye ilmaha kolkii aan nahay oon wax garanaynin aayadaha qur-aankiyo xadiid lagu italeesho adiga i barayo waan ogsoonahay abaalkaaga maan gudi kare waa un dadaalaye unugyada jirkaaga baan qayb ka ahayaabe isirkiyo halkii aan ka yimid adiga weeyaane ilinkaan marayaba ducaan ku aqrinayaaye awoodoo dhan allahayo wada lagugu eegtaye oo ilaali waalidkaysay barbaarsheene asluubtiyo dhaqankii wanaabay igu dadaaleene itaalyari makhluuqan runtii laguma eedeeyo aabbahay iftiinkuu i baray igama dahsoona ildogsiga hadduu waalidka irida ku joogo ama uu ifka nool yahay waad istareexdaye amuuraha adduunyadu ma ahan saad u aragteene agoon iyo nin aabbihii nool yahay kala awood dheere abtiriis haddii ay tahay sirka soomaali midkan toosu eeganahayo laygu aqoonsayo allah baan ku dhaartay xaqiiq aabbahay weeyaane orood laguma gaare adduun waa ebtala weyne adigoo haminayuu durbaaba soo afgo'ayaye ajashiisa ka gadaal ma jiro ruux yar joogaye aakhirana gurigii rasmiyoon ebid dhammaanayne allahayow hadday tahay adduun iminka aan joogno ama ay aakhiraba tahay eebba hortiisaye aabbahay rabbiyo ku sii nolol ammaanaysan adigoo ka raaliya rabbow aakhira joogo udgoonow rasuulkeeni rabbow way ishaleelaane abuubakar sidiiqiyo asxaabtii uu la jaar noqdaye u hibeey ammaankii jannaadoon ebid ammaaniin